Dad boqolaal sano ka hor geeriyoodeen oo aan weli la aasin, isla markaana si maalinle ah loo qurxiyo, jirkoodana loo dabiibo si jirkoodu u sii oolaado. Qabiilka Turkaniska, oo ka mid ah qabiilada ugu waaweyn uguna caansan waddanka Indonesia, isla markaana dadkiisu ay ku nool yihiin gobolka Koonfurta Sulawesi ee dhaca mid ka mid ah jasiiradaha ugu waaweyn waddanka Indonesia, ayaa waxa ay dhaqan ahaan u leeyihiin in dadka ka dhinta ay jirkooda ay xafidaan ama ay dhigtaan guryahooda ama goobaha markaasi ay ku nool yihiin, iyagoo door bidaya in qofkaasi jirkoodu uu sii oolaado maalin maalmaha ka mid ahna uu dib u soo noqon doono. Dadkan oo ku nool jasiirad buuraley ah ayaa dadka ka dhintaan sida carruurta, dhalinyarada iyo dadka waaweynba waxa ay guryahooda ay uga dhex sameeyaan meel ay dhigaan, iyagoo u sameynaya sariiro loogu talagalay in ay meydkaasi uu saarnaado, iyagoo aaminsan in dadka halkaasi u saaran uusan si dhammaystiran u dhiman, isla markaana uu maalin maalmaha ka mid ah dib u soo noolaanayo, naftuna ay ku soo noqonayso oo dadkiisa ama dadkii uu ka tagay uu qayb ka noqonayo mar kale. Dadkan reer Turkan ee Indoneesiyaanka ah ayaa qofka dhintay ee sariirta u saaran gurigooda waxa ay siiyaan xuquuq la mid ah midda ay dadka caadiga ah ay leeyihiin, sida cunnada oo 2 waqti loo geynayo meydka, dharka oo dhowr mar laga beddelayo toddobaadkii, iyo daawo la siinayo si qofkaasi uu dib ugu soo kaco sida ay aaminsan yihiin. Waxaana intaasi sidoo kale qofkaasi meydka ah u dheer in la siinayo haddii ay jiraan balwado uu leeyahay ama wax kasta uu jeclaan jiray amaba uu joogtay jiray, iyagoo dadkaasi qabaan in qofkaasi marka uu soo kaco uu u mahad celinayo, raallina uu ka noqonayo. Qofkii arrinkaasi diida in dadka ehelkiisa uu sameeyana marka uu dhinto ayaan isagana loo sameyneynin, waana caado dhaqameed oo qof kasta oo reer Turkana uu ku qasban yahay in uu sameeyo marka qof ehelkiisa ama ay jecel yihiin uu ka geeriyoodo. Dhanka kale, meydka guryaha yaalla ayaa aad looga ilaaliyaa cayayaanka iyo wax kasta oo dhibaato u geysan kara, sidoo kalena inta qofka urkiisa ay ka baaba'ayso ayaa la laasimaa daawooyin markaasi jirkiisa la doonayo in uusan soo urin oo qofkaasi si maalinle ah loo marinayo. Waxaana magaalooyinka ay qabiilkan Turkaanku ay degan yihiin buux dhaafiyay boqolaal kun oo meyd ah, kuwaasi oo sanado dhow dhintay, kuwa qaarna ay geeriyoodeen boqolaal sano ka hor, taasi oo dadkan ay aaminsan yihiin in maalin maalmaha ka mid ah ay dadkaasi guud ahaan dib u soo noqonayaan, si dhammaystiranna aysan u dhiman, marka dib ay u soo noqdaanna ay raalli ka noqonayaan, oo ay tahay caado dhaqameed ay guud ahaan iska soo gaareen kacab dadkani oo mar walba sidan sameeyaan marka uu qof ka geeriyoodo, ha weynaado amaba ha yaraadee.